Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aqaari ku soo dhowaada barnaamijkan la magac baxay Afurka Walaalka wax ka sii oo idiin soo jeedin doono aniga oo ah Ciid Cabdiqaadir Wardi. Meesha aad kala socotaana waa Golaha Wacyi iyo Waxqabad. Ku soo dhowaada barnaamijkeenan. Waxaa nagu hareeraysan dad masaakiina oo u baahan garab istaag iyo caawin. Barnaamijkeenan waxaan ku soo qaadan doonaa 2 xadiis oo kaliya. Ma ahan horta inaan anigu aqoon iyo wax garaad aan idin dheerahay, balse Ilaahay baa wuxuu yiri fadhakkir fa inna dhikraa tanfacul mu'miniin. Xasuusinta waxay wax taraysaa dadka mu'miniinta ah. Marka anagu waxay noo noqonaysaa inaan wax is xasuusinayno oo kaliya. Dhammaanteen waa wada ognahay inay khayr badan tahay in la caawiyo dadka masaakiinta ah, balse mar walba waxaa wanaagsan inaan wax is xasuusino si qofka hilmaamsan uu u xasuusto oo una sameeyo ficilka wanaagsanaa. Caawinta masaakiinta xilliyada Ramadaanka. Waxaa nagu hareeraysan dad masaakiin ah una baahan caawin, gaajana la ildaran. Annagana waxaa laga yaabaa inaan cuntada bannaanka ku soo daadinayno intaan ka dharagnay. Qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam wallaahu fii cawni al-cabdi maa kaana al-cabdu fii cawni al-akhiih. Rasuulku wuxuu yiri Ilaahay wuxuu garabkiisa yahay adoonka markuu adoonku garabkiisa u yahay walaalkiis. Adigu markaad walaalka garab taagan tahay eed caawinayso oo Ilaahayna ku caawinayaa oo garabkaada taagan yahay. Qofka masaakiinka ee dhibaataysanna waa qof walaalka ah oo masaakiina oo dhibaataysan una baahan inaad garab istaagto. Haddii aad qofkaas masaakiinka garab istaagto oo aad saacido, Ilaahay baa ku saacidayo oo garabkaada taagnaanayo. Maalkana waa la isweydiin doonaa maalinka qiyaamaha, gaar ahaan adigoo wax haysto misena wax la bixi waayey. Haddii aad wax haysato oo aad wax la bixi weydo maalinka yawmal qiyaamo, waa lagu weydiinayaa maalkaadii meesha aad geysay. Qaala Allahu tacaala, Ilaahay wuxuu leeyahay fi xadiisul qudsi Ilaahay wuxuu ku leeyahay xadiiskan aad buu dheeraa, laakiin aniga ujeedada baan ka soo qaadanaynaa. Ilaahay xadiisul qudsi wuxuu ku leeyahay yaa ibna aadam astadcamtuka falam tudcimnii faqaala yaa rabbi wakayfa adcimuka wa anta rabbul caalamiin. qaala amaa calimta innaka astadcamtuka cabdii fulaanan falam tudcimhu amaa calimta innaka low adcamtuhu lawajadta dhalika cindii. Ilaahay wuxuu leeyahay addoonkaygiiow cunto ayaan ku weydiistay ayuu leeyahay. Addoonkana wuxuu leeyahay Ilaahow see baan cunto kuu siinayaa adoo rabbul caalamiin ah. Ilaahay waa qani uma baahno makhluuqiisa. Wuxuu weydiinayaa adoo rabbul caalamiin ah sidee baan cunto kuu siin karaa. Ilaahay baa wuxuu leeyahay miyaadan ogeyn waxaa cuntaan kaa dalbaday amaa calimta innaka astadcamtuka cabdii, waxaa cunitaan kaa dalbaday ama quud kaa dalbaday addoonkayga fulaan ah, waxbana maada siinin. falam tudcimhu waxba maada siinin. Markaasuu Ilaahay wuxuu leeyahay amaa calimta innaka low adcamtuhu lawajadta dhalika cindii. Haddii aad quudin lahayd ama aad wax siin lahayd, agteeda ayaad ka heli lahayd uu Ilaahay leeyahay. Marka waad u jeedaan walaalayaal, qofka aan maalka haysto haddana aan walaalkiis wax siinaynin, maalinka qiyaama waa la weydiinaa, jawaabna uma heli doono. Markii la dhaho amaa calimta innaka low adcamtuhu lawajadta dhalika cindii marka la dhaho. Marka aan u diyaar garoowna dadka masaakiinta ee baahan aan garab ka siino. Mar walba waa loo baahan yahay inaan garab siino, khaasatan bisha Ramadaanka. Sadaqada waxay dimisaa as-sadaqatu tudfi'u naar, naarta ayay dimisaa. Tan kale waan soomanahay, waxaan rabnaa in soonkan Ilaahay naga aqbalo, inaan ajir badan ka helno. Khaladaad ibni aadam baan nahay, khaladaad ayaa naga dhici karo. Khaladaadkaas waxa aan ku sixi karno waxaa waaye inaan sadaqa badan aan la baxno. Waadna mahadsantihiin. Wabillaahi tawfiiq.